wasiirka gaashaandhigga Suudaan Cawd bin Cawf oo warbaahinta ka hadlay ayaa akhriyay wareegto u jeediyay ciidanka dalkaas waxayna ahayd sidan. waxa uu sheegay in xilka laga tuuro nidaamka talinaya ee hogaaminayo Umar al-Bashir dib habeynna lagu sameeyo dastuurka Suudaan. waxa uu sidoo kale sheegay in la xiro Umar al-Bashir lana bilaabo waqti ku meel gaar ah oo gaadhaya 2 sano lana soo rogo xaalad degdeg ah oo muddo 3 bilood ah. sidoo kale waxa uu sheegay in dib habeyn lagu sameeyo golaha shacabka iyo golayaasha deegaanka dalkaas iyo golaha militariga si ay u maamulaan arrimaha dalka. wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in la xiro garoomada dayuuradaha iyo meelaha laga soo galo dalka Suudaan oo dhan. wararka ayaa sheegaya waqti sii horeysay maanta in askar ka tirsan ciidanka dalkaasi ay Bashir u sheegeen inuuna sii ahaan doonin madaxweynaha Suudaan iyadoona qasriga madaxtooyada la soo dhoobay ciidamada tiro badan. wakaaladda wararka ee Jarmalka ayaa sheegtay iyada oo ila wareedyo dalka Suudaan heshay in ciidanka dalkaasi isu diyaariyay inuu majraha u qabto Suudaan. barnaamijyada ayaa bilaabmay bishii December magaalooyinka iyo degmooyinka dalkaas waxay shacabku ku dalbanayeen inuu xilka ka tago madaxweyne Bashir oo afgambi military ku qabsaday Suudaan sanadii 1989. Umar al-Bashir ayaa lagu tilmaami jiray kaliya taliyaasha ugu adag haatan qaaradda Afrika. waxa uu dhashay sanadkii 1944. waxa uu ka soo jeedaa qabiilka Baytuun. waxa uu ka barbar dagaalamay kuna biiray ciidankii Carbeed ee la dhinaca dalka Masar ee dagaalka la galay Israa'iil sanadii 1973. Umar al-Bashir oo aan wax badan laga aqoon noloshiisa waxa uu markii uu 50 jir ahaa guursaday xaaskiisa labaad mana uu dhalin wax caruura isaga oo waqtigiisa ugu badnaa ku qaatay dagaal. maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC ayaa ku riday waaran qabasho iyada oo lagu soo eedeeyay inuu dambiye dagaal ka galay gobolka Darfur ee Suudaan iyo inuu cadaadis ku soo reegay xisbiyada mucaaradka ee dalkaas labadii doorasho ee 2010 iyo 2015. waxaana amarka maxkamaddu horseeday inuuna u safrin wadamada dibadda ee kala duwan. Sikriya Jakarta.